السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومر kale iyo barnaamijkeeni aan kaga hadlanay tobankii saxaabi ee loogu ballan qaaday jannada iyaga oo ku sugan adduunka korkiisa haddaba waa qaybtii labaad ee qisooyinkii asxaabigii caanka ahaa Cumar bin Khataab haddaba Cumar markii uu ku soo biiray islaamka waxa uu siiyey awood dhiiranaan sidaan ku soo sheegnay barnaamijkii hore waxyaabo badan oo asxaabtu ay la baqan jireen markii hore ayaa ay haatan cadaysteen oo ay ummadda u soo bandhigeen si ay u gaarsiiyaan diinta islaamka walaalahooda kale haddaba qisooyinka caanka ah ee uu Cumar sameeyey markii uu soo islaamay maadaama uu ahaa nin geesi ah oo dagaalyahan ah Quraysh dhexdeedana awood fara badan ku leh taas oo ay muujinayso tallaabooyinkii uu qaaday markii uu islaamay isagoo si toos ah oo aan gabasho lahayn ugu sheegay madaxdii Quraysheed ee uu ka mid ahaa Abu Lahab sidoo kale ninkii Quraysh ugu warqaadeenka ahaa laguna yaqaanay inuu dadka oo dhan gaarsiiyo warka fariin ah inuu islaamay oo uu qaatay diinta islaamka haddaba Cumar habeenada ka mid ahaa ayaa waxa dhacday inuu amiirkii muuminiinta ee waqtigaas Cumar bin Khataab Ilaahay ka raali noqday uu dhex qaaday xaafadaha Madiina si uu u ogaado dareenka iyo dhibaatada haysata dadkiisa maadaama uu ahaa amiirkii muuminiinta oo ay mas'uuliyad ka saarnayd haddaba si uu u ogaado xogta dhabta ah ee dadka iyo shacabka uu madaxda u yahay ayaa habeenada ka mid ah waxa uu sameeyay socdaal uu ku dhex marayay magaalada Madiina si uu ku hurgalo xaaladda nololeed ee dadka uu mas'uulka ka yahay una ogaado dhibaatooyinka haysta kadib waxa uu maqlay oohin markaas ayuu ku leexday gurigii ay ka soo baxaysay oohinta markaas ayuu arkay haweeney iyo carruurteeda oo ooyaya iyo digsi dabka saaran kadib ayuu haweeneydii weydiiyey maxaa keenay oohinta carruurtan oo ahayd qaar gaajaysan gaajaduna ay ku kaliftay inay ooyaan hooyadood ama haweeneyda dhashayna ay ku maaweelinaysay disti ay dabka saartay si ay niyada ugu dhistaan inay helayaan cunto ayaa markii uu Cumar weydiiyey haweeneydii waxay u sheegtay inay carruurtu gaajoonayaan kadibna waxa uu weydiiyey digsiga dabka saaran waxaana u sheegtay digsiga dabka saaran inay ku jiraan biyo lagu sasabayo carruurta maysan garan manay aqoonsan inuu yahay amiirkii muuminiinta Cumar bin Khataab Allah ka raali noqday kadib ayay bilowday inay dusha uga suurto Cumar iyada oo ku eedeynaysa inuu iska indhatiray dhibka haysta iyada iyo carruurteeda Cumar oo aanan weli isu sheegin ayaa markaa weydiiyey waxa uu qaban karo asaga oo markaas ilin badan ka qubanayso haweeneydii ayaa u sheegtay inay waajib tahay inuu ogaado dareenka ummadiisa maadaama uu yahay amiirkooda Cumar Allah ka raali noqday oo uu la socdo gacanyarihiisii Aslam ayaa markaas soo aaday dhanka magaalada ilaa uu gaaray Baytul Maliki markaas ayuu bilaabay inuu soo saaro cunto kala duwan saliid bariis subag iyo xoogaa lacag ah markuu jawaankii buuxiyey ayuu ka codsaday Aslam inuu dhabarka u saaro Aslam ayaa diiday asaga oo ka xishoonaya inuu amiirka muuminiintu jawaan buuxa dhabarka ku qaado Cumar ayaa ku adkaystay kuna yiri Aslam ma adiga ayaa maalinta qiyaamaha culayska iga qaadi doona waa inaan aniga xambaaro jawaankan maadaama maalinta qiyaame aniga la weydiin doono Aslam ayaa markaas Cumar radiyallahu anhu u saaray dhabarka gurigii haweeneydu baahani ku noolayd markii ay tageen gurigii ayuu Cumar digsiga ka buuxiyay raashin ilaa uu ka bislaado haddana u soo riday carruurtii iyaga oo ka dhargay isla markiiba bilaabay cayaar haweeneydii oo aad u faraxsan ayaa Cumar radiyallahu anhu ku tiri adaaba ka fiican amiirka muuminiinta Cumar radiyallahu anhu oo aanan weli isu sheegin ayaa ku jawaabay haddaad aniga iga soo war doonto waad arki doontaa amiirka muuminiinta insha Allah kadib ayuu iska fariistay isaga oo fiirinaya carruurtii oo cayaar gashay intuu Aslam jaleecay ayuu yiri ma ogtahay waxa igu keenay inaan halkan fariisto haddaanay carruurtan way ooyayeen imikana way qoslayaan oo cayaar ayay ku jiraan inaan iska fiirsado farxadooda ayaan jeclaystay Cumar waxa uu ahaa asxaabi aad u qiimo badan oo runtii aad loogu amaanay ilaalinta mas'uuliyadda ka saaran shacabkii islaamka ahaa ee uu mas'uulka ka ahaa waqtigii uu hayay xukunka dowladda islaamka haddaba daawade tani waa tusaale cad oo laga rabo inay qaacido ka dhigtaan dhammaan hogaamiyeyaasha islaamka ee waqtigan xaadirka ah haya xukunka bulshooyinka ay matalaan cid lagu daydana waxa ugu qiimo badan asxaabtii rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ahaa dad uu tarbiyeeyey oo uu dhisay oo huwan magaca iyo maamuuska iyo walibana xilka uu hayay rasuulkeeni Maxamed ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee barnaamijkana intaas ayaan ku soo afmeerayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh